بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dawadayaasha qiimaha qaayaha leh iyo dhammaan dadka casharadan la socda, casharadan oo ku saabsan mabaadi al-idaara ama horudhac ama bilow cilmiga maamulka ah, waxaana idin soo gudbinaya mowqiciga ama website-ka horumariye, kaasoo u adeega ardayda iyo dhammaan bahda aqoonta iyo ogaalka doonaysa. Marka waxaan ku guda jirnay casharadii qiimaha lahaa ee ku saabsanaa horudhaca maamulka, gaar ahaanba shaqooyinka maamulka ama waxa loo yaqaano wadaa'if al-idaara ama alcamaliya al-idaariya, managerial functions. waxaan si faahfaahsan uga soo hadalnay camaliyada koowaad ama howsha koowaad ee maamul walba uu qabto oo ahayd at-takhtiid ama qorsheynta. howsha labaad waxaan nidhi waa at-tandiim, waana casharkeena maanta aan ka hadli doono. at-tandiim ama nidaaminta ama organizing, tacriifkiisu muxuu yahay, maxaa lagu qeexay? التنظيم waxaa lagu qeexay wadiifa min wadaa'if al-idaara, waa howl kamid ah howlaha maamulka uu qabto. والإطار الذي يحدد العلاقة بين الوظائف والواجبات المختلفة، taasoo macnaheedu yahay waa goobta lagu xadido ama lagu jaangooyo xiriirka u dhexeeya shaqooyinka iyo waajibaadka kala duwan ee ururkaas dhexdiisa, bima yuxaqiq al-ahdaaf at-tandiimiya, si loo gaaro ujeedada guud ee ururkaas uu leeyahay. marka saan u jeedno, howshan tandiimka ama nidaaminta ah waxay diiradda saareysaa inay kala soocdo ayna xadido xiriirada ka dhexeeya shaqooyinka iyo waajibaadka laga rabo dadka shaqooyinkaas qabanaya. marka maxay yihiin ujeedooyinka tandiimka ama nidaaminta? ujeedooyinkeeda maxay tahay? maxaa wax u nidaaminaa? maxaa system u sameynaa? maxaa organization u sameynaa? kow waxaa waaye tawfiir al-itaar aladi yumkin min khilaalihi taxqiiq ahdaaf almunadama. waxaa maaragtay la sameynayaa ama la tawfiirinayaa al-itaar aladi yumkin min khilaali taxqiiq ahdaaf almunadama. marka availability in la helo ama meeshaas inuu jiro qaab ama hab oo maaragtay lagu gaari karo ujeedooyinka ururka. min xayثu almahaam wal-ashkhaas, marka waxaa la xadidayaa howlaha la qabanayo, almahaam functions ama taskiska howlaha la qabanayo, wal-ashkhaas aladiina yaquumuuna biadaa'iha, iyo dadka howsha qabanayo. marka tandiimka markaan ama organizing markaan ka hadlayno, awal shay aan xadidayno waxaa waaye maxay tahay howlahana laga rabo. ururkan howlaha uu qabanayo muxuu yahay? haddii urur ganacsi uu yahay, howlihiisa waa inuu wax gadaa ama inuu maaragtay wax soo saaraa ama inuu wax dhoofiya. marka howlihii ayaan si qayaxan u xadidaynaa. saas oo kale ashkhaastii ama dadkii howlihii qaban lahaa ayaan xadidaynaa. midkii suuqgeynta sameyn lahaa, midkii alaabta iibin lahaa, midkii alaabta soo gadi lahaa, midkii xisaabaadka qaabilsanaa. marka shaqaalaha ka shaqeynaya howlahaas fulintooda ayagana waa xadidaynaa. walhaykal aladi yunadimu alcilaaqaat fima baynaha, waxaa kaloo xadidaynaa haykalka ama qaab dhismeedka nidaamiya xiriiradaas dadkaas ka dhexeeya. marka meesha waa inuu qaab dhismeed uu jiraa. urur walba qaab dhismeed uu leeyahay, madax uu leeyahay, wuxuu leeyahay waaxuu leeyahay, wuxuu leeyahay shaqaale hoos uu leeyahay, shaqaale dhex uu leeyahay, maamulayaal sare, maamulayaal dhex uu leeyahay. marka intaas ayaa waxaa laisku yihahdaa qaab dhismeedka. tan labaadba taqsiim alcamal ilaa majmuucaat wa wadaa'if muxadada, waxaana u qeybinayaa shaqada kooxo iyo howlo xadidan.
وتحديد خطوط الاتصال فيما بينها لتسهيل الإدارة. هوليه مركان قيبينه أنا أقيبينه كوحة كلا دوان كوحدة سوقينتا كوحدة ماركتي مالية waxaan xadidaynaa xiriirada ka dhexeeya kooxdaas maxaa waaye xiriirka ka dhexeeya suuqgeynta iyo maaragtay maamulitaanka shaqaalaha tusaale ahaan xiriirka ka dhexeeya waxaa waaye suuqgeynta waxay u baahan tahay dad ka shaqeeya suuqgeyntaas dad wax gad ah marka maamulitaanka shaqaalahana waa dadkii shaqaalaha shaqaaleysiinayay waa dadkii shaqaalaha maaragtay tababarayay marka xiriir weyn ayaa ka dhexeeya marka qaybta maamulitaanka shaqaalaha waa inay u tawfiirisa ama siisaa shaqaale munaasib ku ah qaybta suuqgeynta marka xiriirka ama khutuut الاتصaalka qadadka xiriirka dhammaan ayaa la xadidayaa si loo fududeeyo maamulka. جيم تحديد المسؤوليات والصلاحيات الضرورية لتحقيق الرقابة waxaa la xadiday mas-uuliyaadka ma responsibility qofka maxuu mas-uul ka yahay maxaa maaragtay laga doonaya inuu sameeyo wasalaaxiyaad awooduhu leeyahay kuwaasoo maaragtay daruuri u ah ama laga maarmaan u ah si maaragtay loo sameeyo ilaalin ama ka warheen intaas oo dhamaan ayaa la xadidaya markaan ahdaaftii aan xadidno ka bacdi عناصر التنظيم عناصر التنظيم كم حواي عناصر التنظيم كوحواي وحياوها تنظيم كوكوية وحوك كوكوية تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق الهدف. أول شيء وحان حديدينا نشاطية أما activity لازم كوكو سلو جارو هدفك مركب وحاجرة تسكس أما شقوين أما activities أما أنشطة واجب أما لغم مارمان هدف كسان هو كار هدف كنا وإن فائدة سمينا سما وإن فائدة بدن سمينا حاجة مارمانا إن هيسانو ماركت برودكت أما بديعة عن قدينه بديعة داس نسفي عنينا أو قدنا مركب بديعة داس قديتان كذا هو لها كذا لنا محيطاي هدينونا هي تكان قدايو إلكترونيك إسكا بديعة دينا وموبايلدي بديعة دينا وماركتي قلبدي كلاسة كمبيوتر دي لابتوب دي iyo maaragtay washing machines ka sida maaragtay air conditioners ka iyo maaragtay mukeyfiyada iyo talaajooyinka waxaas dhan aan gadayna haday saa tahay marka waa ina hoolihii aan qabanayna aan xadidno waxaan soo gadanaynaa alaabtaas dibadda ka keensanayna ka bacdina waan sii gadayna marka hoolaha meesha isku jira dhamaantood waa xadidayna tajmiic al-anshita fi iطار هيكل يضمها marka hoolihii ayaan waxaan dhexgelinaynaa هيكل ama qaab dhismeed ama qof qaabilsan maaragtay soo gaditaanka inuu dibadda u baxo alaabtii soo gado qof qaabilsan maaragtay customerka inuu daryeelo oo sii gado isnaad kulli nashaat oo anshita ila wadifa marka hool walbana waxaa loo maaragtay loo tiirinaya ama la siinaya shaqo معينة marka qof walba shaqadaas ayuu qabanaya aw ashkhas tama tahdid حدود سلطة ومسؤولية لكل وظيفة marka tii hadda aan soo sheegnay camal waaye marka shakhsiyaada loo dhiibay qofkii dibadda noo safri lahaa oo alaabta electroniga noo gadi lahaa camal ayaan xadidaynaa waxaana siinaynaa awood iyo mas'uuliyad oo kusoo gado alaabtii qofkii customer kala tacaamuli lahaa alaabtii sii gadi lahaana asna howlihiisa iyo mas'uuliyadiisa ayaa loo dhiibaya kadib waxaa dhacaya taxdiid العلاقات الأفقية والرأسية بين الوحدات waxaan xadidaynaa xiriirka ufuqiga ufuqi waxaa la vertical oo waxaa waaye maaragtay dad isku mid ah isku level jooga ama isku line jooga sida maaragtay agaasimaha oo maaragtay waaxda maaliyadda iyo agaasimaha waaxda maamulitaanka shaqaalaha agaasimaha waaxda suuqgeynta kuwaas waa isku level waa line managers waaye oo isku level waaye isku heer waaye marka dadka isku shaqada ka shaqeeya ama isku heerka shaqo ah ayaa waxaa waaye xiriirka dhex maraya ayaa waxaa la cilaaqaat al-ufuqiyya والرأسية علاقات الرأسية أنا وحلا حريرك قفك كسر دح مراي صلان مالية واحدة قفك مسؤول كا إيوه جود أهان دا شركة قفك ملحة كا حريرك دح مراي كاس وحلها علاقات الرأسية أما شغالها عادية كشقة قيبتا سوقينتا iyo maamulihiisa xiriirka dhexmarayo waxa la cilaaqad raasiya marka xiriiradaas oo maaragtay raasiya waxa waaye vertical waaye ufuqiyan horizontal marka horizontal relationship iyo vertical relationship ayaa xadidayna bayna alwahdaat wahdooyinka kala duwan waxa kala duwan oo al-anshita shaqooyinka kala duwan oo al-anshita mukhtalifa tahdid alwadhaif waxaan xadidayna shaqooyinka marka shaqooyinkan sameeyaan maxay tahay
كدبنا تحديد السلطات والمسؤوليات لكل وظيفة وحن حددنا أود iyo mas'uuliyada shaqo walba ay leedahay maxay tahay sulta ama power ama awooda sulta waxaa lahaa tacni alxaq aw alsalaaxiya fi adaa shayin ma waxaa waaye xaqa u leedahay ama awooda u leedahay inaad samayso shay mucayana shaygan awooda u leedahay waxaa tahay maamulihii guud ee shirkadan waxaa awood u leedahay inaad amarto dhammaan shaqaalaha ururkaas ka shaqeeya ama shirkadaas ka shaqeeya marka taas as-sulta la dhahaa أما المسؤولية مسؤولية محيطة مسؤولية أما responsibility وحاول هي الالتزام بأداء شيء ما مركا التزامي سامة معركة كسر بحث commitment إنها كسر بحث أي تهاي بأداء شيء ما شيء إنها سميس وحلا قدرة إنها قبضته إنها كسر بحث تاسع مسؤولية الله وهي المحاسبة عن نتائج تم الالتزام بها مركا والله حساب تمايا أرنتي لو ديوي ما سميسي مسؤوليته ما كسر بحده مسؤوليته تاسع أنواع التنظيم نوعيها كلا دوان تنظيم أما organizing أما نظامنتا وكلا قيب سنة التنظيم الرسمي نظامنتا رسمي قاب رسمي أما أوروركا ودجيي أيا ماركتي نظام كسودا حياة التنظيم الرسمي مركا وحاوى يشمل علاقات العمل الرسمية بالمنظمة marka waxa waaye hoolaha rasmiga ee ururka hoolaha rasmiga ururka dajiyay shaqaalihiisa inuu sameeyo xiriirada ka dhaxeeya oo ururka dajiyay wax walba ururka si rasmi ahaan u dajiyay ayaa waxa waaye xiriirka tandiim rasmi lagu magacaabo بدءا من المدير العام laga bilaabo maareeyaha guud وحتى أدنى مستويات التنظيم إلى heerka hoose ee nidaamka marka shaqaalaha ugu hooseeya computerka hor fadhiya ama shaqaalaha ugu hooseeya maaragtay clientiga qaabila oo u sameeyo howshiisa ama shaqaalaha ugu hooseeya oo maaragtay warshada fadhiya oo maaragtay wax soo saarka ka qayb qaata ilaa mudiirka sare xiriirka u dhaxeeya oo ururkaas u dajiyay taas waxa lahaa التنظيم الرسمي التنظيم غير الرسمي محل التنظيم غير الرسمي وحل نظامينتا او ماركتين حب نظاماتك او رسمي aan ahayn waxa xiriirada oo saaxiibtinimo iyo xiriirada oo isbarasho ka dhaxdhacayo shaqaalaha guud ee shirkadaas marka tandiim غير رسمي يشمل علاقات العمل غير الرسميه waxa xiriirada shaqeed oo rasmiga aan ahayn way مثل علاقات بين العاملين waxaana shaqaalaha caadiga ah xiriirka ka dhaxdhaco iyo maamulayaashooda كعلاقات العمال فيما بينهم marka Soomaalidan hadayna anagu tandiim غير رسمي aad buu badan yahay waxaana arkaysaa shirkadaha waaweyn maaragtay waxay ku shaqeeyaan badankooda tandiim غير رسمي oo ah xiriiro badan inuu ka dhaxeeyo shaqaalaha oo maaragtay shirkadaas ka shaqeeya gudaheeda waxaad arkaysaa mudiirka guud ee ururkaas inuu saaxiib dhow leeyahay shaqaale iska caadi ah ama maaragtay wax mucayan oo ka shaqeeyo saas oo kale maaragtay shaqaale oo maaragtay wax kale ka shaqeeyo inuu mudiir waaxid uu saaxiib leeyahay marka xiriiradaas oo saaxiibtinimo ama xiriiradaas rasmiga aan ahayn waa inugu badan yihiin ka Soomaali ahaan waxaana lagu soo qaataa badana marka laga hadlayo management control system waxa la ama qaab maamuleedka ee Soomaalida ay leeyihiin khasaa'is التنظيم الجيد الفعال waxaan ka hadlaynaa halkan sifooyinka uu leeyahay nidaaminta wanaagsan ee wax ku oolka ah marka hadaan doonayno inaan nidaamin wanaagsan aan dejino waxaa muhiim ah an tashtarik kull ajzaa التنظيم في تحقيق هذا الهدف العام المشاركة in leeyahay participation in leeyahay inay ka qayb qaataan dhamaan qaybaha kala duwan ee tandiimkaas ama ururkaas si loo gaaro hadafka guud shaqaalaha ahaado maamulaha ahaado iyo dhamaan dadka howsha kule maaragtay ururkaas waa inay ka qayb qaataan in la gaaro ujeedada guud uu leeyahay ururkaas wahdatul amr waxa waa in awaamirta laga qaato hal mudiir marka shaqaale mucayan ama koox shaqaale walba inay lahaadaan hal maamule oo amarka siiya marka amaro kala duwan inaan la siinin shaqaalaha marka shaqaale walba 10 ahaado ama 8 ahaado hal mushrif loo yeelo ama qof maaragtay ogaanayo oo ka warhaynayo oo maamulayo marka qofkaas ayaa amarkana siinayo توازن السلطة والمسؤولية لكل وظيفة وحانا مهمة إن توازن أما بالانس أما اسكو ديلكترنان السلطة والمسؤولية السلطة حوالي أود والمسؤولية مسؤولية لغير بينا سميسو لكل وظيفة مركا هول والبا إن أودي لسيي هي مسؤولية لغير بينا اسكو ديلكترنان أفر التسلسل الرئاسي إنه يجرو تسلسل أما اسكو حيطان أو مدح معناه مدح جود وحاكو صحية
ku-xigeenkiisa waxaa kusoo xiga agaasimo waaxeed, waxaa kusoo xiga ku-xigeenkiisa waxaa kusoo xiga shaqaalihii maaragtay mushrifka ahaa ama ilaalinaya ama supervisorka ah, waxaa kusoo xiga shaqaalihii caadiga. marka tasalsul riyaasi isku xigitaankaas inuu jiro bikhuduuci kulli mustawa lilmustawa aladi yacluuh. marka heer walbaba waxaa maaragtay hoos imaanaya dadka ka sareeya, heerka ka sareeya, levelka ka sareeya fi lhaykal, macnaha qaab dhismeedkaas maamuleed. cadam xuduud tadaakul bayn alwuxdaat aw alaqsaam aw alidaaraat, waxaa muhiima inaan dhacin isdhexgal maaragtay waaxooyinka kala duwan, qeybaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee ururkaas leeyahay, isdhexgal iyo isku dhexyaac inaan meesha dhicin ayaa la rabaa. waxaa jira marka aladila walkharaa'id tandiimiya waxaan laga wadaa maaragtay sawir oo sawirayo ururkaas suu yahay. ururkaas qaab dhismeedkiisa ayaa sawir ahaan loo qoraya, maamulihii guud ayaa kor lagu sawiraya, intii kusoo xigtay waa lagu soo xijinaya, waxaana lagu soo xijinaya kuwa ugu hooseeya. marka taasa waxaa la aladila walkharaa'id atandiimiya. aad iyo aad baa umahadsantihiin. maanta casharkeena halkaas baan ku ekeynaynaa, ilaa maalin kale aan kala ku kulmayno ama cashar kale aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.